بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون. إلهي ونحرسه رئيس الوزراء رئيس صوماليا دكتور علي خليف قليد وأنا لو ذاك إلى مدة الصوماليات تعسيديسا وهلا كشكين دونا تاريخ نولد كيسا وهو كل شيء مقالة لاسعانود علي خليف قليد أفريقيا توانكي بشي أكتوبر سنة يكون يسقال بقول يكوبي أفرتنكي yaraantiisiina dugsiga hoose quraanka kariimka ayuu ku bartay isla magaalada Laascaanood 1948kiina dugsiga hoose ee Laascaanood ayuu arday ka noqday dugsigii dhexana waxa uu ka dhigtay magaalada Sheekh dugsigii sarena magaalada Boorame dugsiga sare ee Amuud oo ka qalin jabiyay 1959 shaqadii ugu horeysay oo qabtay Cali Khaliif Galeyd Allah u naxariistay waa ahayd gudoomiyaha degmada Afgooye ama duqa magaalada Afgooye sanadkii 1964 waxaa jiray xafiiska danaha Soomaalida oo madaxda ka shaqeyn jiray arrimaha dhulka Soomaaliyeed ee Jamhuuriyadda ka baxsan gudiyo loo sameeyay ayuu ka mid noqday laba jeer Cali Khaliif Galeyd oo mid waxay ahayd gudigii arrimaha Soomaali galbeed waxaana uu ka noqday xogaye ka gadaalna isla gudi kale oo kala mid ah oo gudigii arrimaha Jabuuti ayuu ka noqday mar kale xogaye 1963 ilaa 1973 marxuum Cali Khaliif Galeyd waa maariyay ka ahaa mahadkii maamulka ee Siiba la oran jiray kadibna waxaa loo diray dalka dibadiisa deeq waxbarasho halkaas oo jaamacadda Maxwell School loo yaqaano oo ka soo qaatay shahaadada postgraduate ama masterate-ka Syracuse University jaamacadda leedo 1969 markuu soo noqdayna waxaa loo dhiibay isla mahadkii Siiba ee maamulka oo ka noqday agaasimo guud bishii July 1974 Cali Khaliif Galeyd waxa uu maariyay ka noqday warshadii sokorta Jowhar ee isna Biyaasa taas oo shaqaalaha ka shaqeynaya xilliga ay ahaayeen 7,000 oo qof dhulka ay haysateen 9,000 oo hektar oo beeraha qasabka ee warshadu ku shaqeyso dhaqaalaha dalka ka soo gala warshadaasi waxa lagu qiyaasay 10% inuu ka ahaa dakhliga guud ee qaranka 1977 ilaa 1980 waxa uu noqday maarayaha guud ee mashruuca warshada sokorta Mareerey taas oo ahayd mashruuc aad u ballaaran oo baaxad weyn oo miisaaniyadiisu ay ahayd 400 milyan oo dollarka Mareykanka waana ay ka wada shaqeynayeen shirkadda Ingiriiska 1979 marxuum Cali Khaliif Galeyd waxaa loo magacaabay xubin golaha shacabka ama baarlamaanka dalka 1980kiina wasiirka wasaaradda warshadaha ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Soomaaliya ayuu noqday Cali Khaliif Galeyd waayaha kadib waxaa bilaabmay kacdoono qarsoon oo rag siyaasiyiin ay ku dhaliilayeen hanaankii dowladdu ay dalka u maamuleysay raggaas isbeddeldoonka ayuu ku biiray waxaana laga qaaday xilkii wasiirnimada 1900 ee warshadaha 1981 dabeetana markaa Cali waxa uu tagay dalka Mareykanka halkaas oo ku dhammaystiray shahaadada PhD oo xagga maamulka iyo dhaqaalaha uu soo bartay waana uu ka mid noqday professorada wax ka dhiga jaamacadaha Mareykanka waxa uu ka qayb galay Cali Khaliif Galeyd waayihii burburka shirarkii Soomaalida lagu nabadeynayay ee dalka gudihiisa iyo dibadiisaba shirarkii uu ka qayb galay waxaan ka xusi karnaa shirkii May ee Burco lagu qabtay 1991 iyo kii 93 lagu qabtay Boorame shirarkii kale ee ka dhacay Nairobi Qaahira Djibouti iyo meelo kale 2000 markii shirweynaha Soomaalida lagu qabtay Jamhuuriyadda Djibouti magaalada Carta Cali Khaliif Galeyd waxaa loo doortay loo magacaabay ra'iisul wasaarihii qaranka taas oo ay muddo sanad xilkaasi sanadkii 2012 Cali bishii August waxa uu ka mid noqday golaha baarlamaanka golaha shacabka ee dowladda federaalka Soomaaliya ayuu xubin maareey wuxuu ahaa xubin mudane golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya Cali Khaliif Galeyd waxa uu ahaa sidoo kale siyaasi kaliya ma ahayn nin ganacsada oo ganacsada waaweyn ee dalka ka mid ah ana uu ka shaqaysan jiray Khaliijka iyo Bariga Afrika shirkadda isgaarsiinta haatan soo baxday Somtel ragga aasaasay teedka u muday ayuu ka mid ahaa Cali Khaliif Galeyd sanadkii 2012 aan ilaahdo sanadkii 2012 shirkii talax ka dhacay shirweynihii ay isugu yimaadeen
beelaha dega sool sanaag iyo cayn raggii hirgeliyey saldhiggan oo ahaa ayuu ku jiray cali khaliif galayd oo weliba ka ahaa hormuudka koowaad kadibna waxaa loo doortay madaxweynaha maamul goboleedka soomaaliyeed ee sool sanaag iyo cayn oo khaatumo oo isagu uu yagleelay halkaas oo loogu doortay madaxweynaha ismaamulka soomaalida ee maamul goboleedkaasi sool sanaag iyo cayn ee khaatumo la magacbaxay waxaana uu heshiis la galay dowladdii uu hogaaminayey axmed maxamed maxamuud siilaanyo inkastoo cali khaliif allah u naxariisto uu sheegay in wadahadal oo keliya wadahadal ayaa noo bilaabmay ee weliba heshiisa ma aanaan gaadhin cali khaliif galayd heshiisyadaasi somalilan may hirgelin maalmihii ugu dambaysana waxa uu ka hadlayey oo ugu baaqayey madaxda somalilan in dastuurka la furo beeluhuna ay somalilan la wada leeyahay halkaas ay ka soo baxdo wuxuu waday isku soo dhoweynta ummadda soomaaliyeed cali khaliif galayd ilaahay u naxariistee waxa uu ifka kaga tegey 4 carruura iyo hal xaas 4 carruuri waa 2 wiil oo la kala yidhaahdo weliid iyo warsame iyo 2 gabdhood oo la kala dhaho milgo iyo caaisha marwadiisuna waxay ahayd xaaskiisu cali khaliif allah u naxariistee maryam cabdi beexi sidaa warkuu igu soo gaadhayo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo waxa uu toos ula xidhiidhay khadka telefoonka marwada marxuumka maryam cabdi beexi halkaasuu uga tacsideeyey geerida ku timid saygeeda waxaa kaloo ula xidhiidhay qaar ka mid ah walaalaha cali khaliif oo ilmo khaliif galayda oo u tacsideeyey waxaa kaloo madaxweyne farmaajo oo amray in maadaama uu ahaa ra-iisul wasaare soomaaliyeed loo soo duuliyo meydkiisa muqdisho aas qaranna loogu sameeyo oo xukuumaddu ay hirgeliso waxaase jira warar kale oo xagga jigjiga ka imanaya ismaamulka soomaalida oo ay leeyihiin in meydka aada loo baaro sababuhu u dhintay iyo in lagu aaso jigjigaba ay ku adkaysanayaan hayeeshee dowladda soomaaliyeed way ku dhawaaqday ra-iisul wasaaruhuna uu ka hadlay rooble madaxweynuhuna amarkaa uu bixiyey meeshii lagu aasaana waa meel soomaaliyeed ee tan dowladda federaalka madaxweynaheedu sameeyey ra-iisul wasaaruhu waxay noqonaysaa maamuus qaran oo qofkii xilka qaran soo qabtay lagu maamuusayo nolosha kadib taasi ayaan u diraynaa ummadda soomaaliyeed ilaahay sabir iyo imaan inuu ka siiyo rugcadaaga siyaasiga ah ee ka baxay ummadda si gaarna waxaan ugu tacsiyeynaa waxa uu ahaa cali khaliif waan aqaanay anigu nin aada u asxaab badan soomaali oo dhanna saaxiibo kumayaal iyo kumayaal ku leh kumaankukaa soomaalida saaxiibada la ahaa ehelkii iyo qoyskii carruurtii iyo marwadii uu ka baxay iyo ummadda soomaaliyed waxaan leenahay ilaahay naga siiyo samir iyo imaan cawad khayr qabana haynoogu bedelo isagana waxaanu ilaahay uga baryaynaa naxariis iyo dembi dhaaf iyo jannadii firdowsa ilaahay ha u naxariisto dr cali khaliif galayd